guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa waxay si rasmi ah u shaaciyeen tirada codbixiyayaasha iska diiwaangeliyay gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland. guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah waxay u shaaciyeen tirada codbixiyayaasha iska diiwaangeliyay gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland waxaana kulankii lagu shaacinayay oo lagu qabtay xarunta guddiga doorashooyinka ee magaalada Hargeysa sidoo kale goobjoog ahaa mas'uuliyiin ka socday saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland. ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay afhayeenka guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland Siciid Cali Muuse in komishanka doorashooyinka qaranku uu soo bandhigo diyaar garowga sida kaarka loo bixinayo kaar qaybinta oo ina ku soo fool leh oo dhawaan dhici doonta iyo waliba tan ku xigta iyadana ah ee loo socdo doorashada labada muhiimadood ayaa kulankeena maanta runtii uu qaabilsan yahay waxaanu kaloo soo bandhigi doonaa arrimo kale oo ka mid tahay xogtii diiwaangelinta bal iyadana maxaa ka heli doono aragti ahaan iyo tir ahaanba. Cabdifataax Ibraahim oo ka mid ah guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa halkaasi waxa uu kaga dhawaaqay tirada codbixiyayaasha iska diiwaangeliyay gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland. gobolka Awdal guud ahaan waa 147,031 Boorama waxa weeyaan 90,469 Saylac waa 26,547 Lughaya waa 15,185 halka ay Bakina tahay 14,830 gobolka Maroodijeex waa 312,634 Hargeysa waa 222,957 Gabiley waa 58,780 Beligubadle waa 14,750 halka ay Salaxleyna ka tahay 16,815 aynu u sii socono bari waa gobolka Saaxil waxa caasimadda iska diiwaangeliyay 63,830 halka Sheekhna ay tahay 15,011 wadarta guudna waa 78,842 gobolka Saaxil guud ahaan Togdheer waa 178,506 Burco waa 144,959 Oodweyne waa 23,614 halka ay Buuhoodana ka tahay 9,930 gobolka Sool guud ahaan waxa iska diiwaangeliyay 17,690 waxa iska diiwaangeliyay Laascaanood 29,558 Caynaba 30,250 Xudun 5,340 Talixna 5,145 saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ayaa iyaguna geestooda waxa ay soo dhaweeyeen shaacintani ay guddiga doorashooyinku sameeyeen. aad iyo aad baan komishanka ugu mahadnaqaynaa diyaar garowga fiican iyo timeline-ka doorashooyinka iyo kaad bedelka ay sameeyeen intaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaan ku hambalyeeynaa guddiga doorashooyinka qaranka jadwalkan quruxda badan ay soo jeediyeen ee isugu jira kaar qaybinta kuna siman ilaa iyo muddada doorashadu ay dhacayso maanta ay dhacayso doorashooyinkii iyo diiwaangelintii waqtigoodii ay komishanku cayimeen inkastoo horeba u cayimeen maanta waxaan rajeynayaa inay tani noqoto tii runta ahayd ee lagu shaqaynayay.